soo dhawaada mar kale daawadayaal haddaba maxamuud caade oo soo ururiyey macluumaadkan ayaa ku sugan istuudiyaha labaad ee HBN barnaamijkana ila falanqeynaya. Maxamed, imise ayuu gaarsiisan yahay khasaaraha keedka hubka ee Mareykanka? cinwaan ayaa waxaa laga dhigay hubka ka dhammaaday Mareykanka. maxay tahay sababta Mareykanka hubka keydka ah ee ka dhammaaday oo si dhaqso ah ugu samaysan lahayd? inkastoo howlgalkii military ay Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen Iiraan uu hadda istaagay, haddana waxaa muuqda calaamado muujinaya heshiiska isfahamka ah ee dagaalkii halka bil iyo dheeraad ka socday ee dagaalka lagu soo afjaray in uu keenay isbeddel weyn marka la fiiriyo waddanka Mareykanka gudihiisa, oo ay hadda u taagan tahay in qiimeyn lagu sameynayo dagaalkii uu Mareykanku galay, hubkii Mareykanka iyo siyaabaha hubkii Mareykanka iyo rasaastii dib loogu dhisi karo. warbixinada Mareykanka ka soo baxaya ayaa tilmaamaya hubka uu Mareykanka dagaalkaasi ku isticmaalay Iiraan ka dhanka ahaa, caqabadaha ku gudboon dadaalka la rabo in hubkaasi dib loogu sameeyo, iyadoo digniin laga bixinayo inay sanado badan qaadanayso in Mareykanka uu hubkaasi mar kale awooddaas oo kale soo gaaro ama uu samaysto. waxaa xadidan baa leeyahay Mareykanka diyaar garow inuu u geli karo inuu colaad kale mustaqbalka galo. sababtoo ah baa la yidhi ma aha oo keliya inaysan sahlanayn in hubkii Mareykanka kaydka u ahaa ee dagaalkaasi ku burburay in la bedelo, sidoo kale waxaa jira culays kale iyo caqabado kale oo la xiriira dagaal kale oo Mareykanku galo awood ku filan ma haysta. waa gartay marka maxay dhan tahay baaxadda hubka la isticmaalay? sida warbixin lagu qoray The New York Times ee daboolka qaadayso dagaalkii Israa'iil iyo Mareykanka Iiraan ku qaadeen ayaa Mareykanka waxa uu isticmaalay hub aad u fara badan. natiijadana waxay noqotay mid hubkiisa kaydka ahaa uu aad hoos ugu dhacay, sida laga soo xiganayo xoga laga soo xigtay ee wasaaradda dagaalka ee waddanka Mareykanka iyo saraakiil ka tirsan Koongareeska Mareykanka. warbixinta ayaa dib u eegaysa qoraallo fara badan iyo macluumaad fara badan oo dagaalkan la isku xiiqday laga soo saaray oo lagu sharaxayo in Mareykanka uu riday in ka badan 1,100 gantaal oo kuwa loo yaqaano cruise-ka fogaanta masaafada fog lala tiigsado, oo la sheegay in xataa kaydkii uu Shiinaha uga hortegi lahaa oo dagaalkan ku isticmaalay. tirada ayaa waxaa la sheegay inay aad hoos ugu dhigtay kaydkii uu lahaa Mareykanka. waxaa in ka badan 1,000 gantaalada Tomahawk loo yaqaano ayaa iyagana la riday oo u dhigma 10 goor hubka ay dowladda Mareykanku sanadkiiba gadato. waxaa la isticmaalay 1,200 oo gantaalka Patriotka loo yaqaano looga hortaga gantaalada kale oo midkiiba uu jooga 4 milyan. intaa waxaa dheer 1,000 gantaalada Brimstone loo yaqaano iyo ATACMS oo looga hortago gantaalada dhulka laga soo rida oo ayagana qaali ah. sida warsidaha Foreign Policy uu ka soo xiganayo taliska dhexe waddanka Mareykanka ee Sitcom oo sheegaya intii lagu weli jiray kulan guddi uu lahaa Senatka bishii la soo dhaafay in militariga uu isticmaalay in ka badan 14,000 oo hub isugu jira gantaalo iyo noocyo kala duwan oo rasaas ah intii dagaalka lagu jiray. warbixin ay soo saareen xarunta istiraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ayaa iyadana qiyaasaysa in khasaaraha hooyad ee Mareykanka u soo hoyday ama ka khasaaray ay aad u badan tahay marka la fiiriyo hubka nidaamka difaac cirka ay isticmaaleen oo isugu jira gantaalada Patriotka loo yaqaano iyo THAAD-ka. waa gartay marka maxaa dib u dhiska keedka hubka uga dhigaya mid adag? sida wargeyska New York Times uu hoosta ka xariiqayo, dadaalada hubkaasi Mareykanka ka khasaaray lagu bedelayo ayaa culays wuxuu ka saaran yahay lacagtii lagu bixin lahaa iyo warshadihii soo saari lahaa marka laga gudbo Donald Trump maamulkiisa inuu riixayo in la dardar geliyo in hub cusub la sameeyo. intii lagu guda jiray kulan ka dhacay aqalka cad toddobaadkii la soo dhaafay, Trump iyo mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda dagaalka
ayaa raadinaya laba wadiiqo inay dhibaatadaasi hub la'aanta ku xaliyaan. waa mare in ay isticmaalaan shirkado soo saara agabka militariga siday ku dardargelin lahaayeen hub cusub in la soo saaro, cadaadisna lagu saaro Congress-ka inay ansixiyaan lacaga dheeraada oo lagu maalgeliyo qiimaha hubkani ku baxaya ama dagaalkii hubkii uu khasaariyey lacag u dhiganta ama ka badan. Trump ayaa codsanaya lacag ka badan 70 bilyan oo dollar oo dagaalka ku khasaartay oo uu rabo in Congress-ku arrintan aad u diidan in uu marsiiyo. taa beddelkeedii shirkadaha difaaca ayaa u sheegay madaxweynaha mar ay kulan ku lahaayeen toddobaadkii lasoo dhaafay aqalka cad in ay u baahan yihiin lacaga dheeraada oo lagu maalgeliyo in warshadaha la ballaariyo, sida laga soo xiganayo saraakiil xoogaal u arrimahani iyo kulanka dhacay. qorshayaal la soo jeediyey oo lagu dardargelinayo ama lagu kordhinayo wax soo saarka xagga hubka ee Mareykanka ayaanan weli ficil isu bedelin marka la fiiriyo sidii lagu ballaarin lahaa warshadaha hubka soo saara, sida laga soo xiganayo saraakiil xoogaal u ah wax soo saarka xagga qalabka militariga ee waddanka Mareykanka. waa gartay marka waa maxay xalalka ay raadinayso Washington? sida warsidaha foreign policy uu ku waramayo Trump ayaama uun ka hor inta uuna ku dhawaaqin heshiiska is-afgaradka ee Iiraan lala gaaray ayaa waxa uu rabay inuu soo saaro qaanuun lagu soo saarayo agab cusub oo difaaca uu Mareykanku leeyahay oo ujeedadiisu tahay in wax looga qabto waxa uu Mareykanku ku tilmaamay ama madaxweynaha Mareykanku ku tilmaamay culayska xagga hubka ee waddanka Mareykanka saaran iyo hub la'aanta haysata. qaanuunkani la bedelayo ayaa waxaa la soo saaray 1950kii. madaxweynaha waxa uu siinayaa awood si degdeg ah oo amar ku bixiyo in si toos ah shirkadaha hubka soo saara ay u dardargeliyaan hubka lagu difaacayo qaranka Mareykanka. maamulka Mareykanka ayaa sidoo kale raadinaya inuu dardargeliyo wax soo saarka xagga hubka asaga oo shirkadaha baabuurta ka shaqeeya siinaya qandaraasyo cusub. Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay in shirkadaha ay ka mid yihiin Ford iyo General Motors oo baabuurta soo saara in ay warshadahooda qaar ka mid ah ay u qoondeeyaan in lagu soo saaro agabka militariga ee waddanka Mareykanka sida warbixinta lagu xusay. militariga Mareykanka ayaa sidoo kale raadinaya hub aanan qaali ahayn oo si dhaqso ah loogu sameeyo oo difaaca qayb ka noqda, waxaana weli daboolka laga qaadin qorshahan cusub iyo lacagta agab aanan qaali ahayn sida loo sameyn lahaa. qiimaha lagu bixinayo halkii gantaal inuusan ka badan $1 milyan. waa gartay marka saameyn noocee ah ayay tani ku yeelan kartaa awoodda military ee Mareykanka? marka la fiiriyo wasaaradda gaashaandhigga ama wasaaradda dagaalka ee waddanka Mareykanka awood ma u leedahay inay dagaalo mustaqbalka qaado, gaar ahaan marka la fiiriyo dagaalada waaweyn ee laga yaabo inuu ka dhan noqdo Shiinaha ama Ruushka oo laga yaabo inay caqabad weyn ku keento Mareykanka hub la'aanta oo la qiyaasayo inay tilmaamayso in Mareykanka uunan sanado badan ka soo kaban karin hubka ka khasaaray. Tara Murphy oo ah ninka madaxda u ah hay-ad ka shaqeysa difaaca ciidamada cirka ee xagga kombiyuutarada ayaa sheegaya in dowladda Mareykanka ay kusoo food yeesheen khataro waaweyn inta u dhexaysay baa leeyahay in dagaalka uu Mareykanku u baahnaa xagga cirka ah iyo amniga qaranka ee loo baahan yahay in uu culays weyn ka jiro. khabiirkan ayaa waxa uu sharaxayaa ama sarkaalkan ayaa waxa uu sharaxayaa in isu dheelitirnaan ay ka jirto arrimo badan oo ay ka mid tahay in nidaamka wax soo saarka militariga Mareykanka uu yahay mid kala qaybsan oo qadiim ah iyo warshado qadiim ah, taasoo horseedi karta in dib u dhac weyn uu ku yimaado hubka cusub iyo barnaamijyada cusub ee la rabo in laga shaqeeyo iyo agabka cusub ee la rabo in la soo saaro. arrintaas oo dhanna waxay u baahan tahay wax ka qabasho. xataa kombiyuutarada lagu isticmaali lahaa xataa waa kuwa qadiima.
waa gartay marka maxay tahay digniinta ugu weyn ee warbixinadu soo jeedinayaan? warbixintan ayaa bishii hore daboolka qaaday ay soo saareen xarunta istiraatiijiyada iyo daraasaadka caalamiga ah oo ku soo gabagabaysay in dowladda Mareykanka aynan haysan hub ku filan haddii ay dagaal kale la gasho waddanka Iiraan, isla mar ahaantaasna hubkeeda keydkaana uu dhammaaday, taasoo abuurtay inaynan diyaar u noqon karin inay colaad ay la gasho waddanka Shiinaha. waxaana digniin laga bixinayaa in loo baahan yahay in dib u dhis lagu sameeyo agabkii militariga, taasoo hadda walwal weyn oo ka jiro iyo xaaladda hadda ku geedaaman awoodda militariga oo ay u soo hoyatay Mareykanka khasaare uunan filayn. hubkii uu haysto oo kaydka oo dhan ka khasaareen, guulna ku gaari waayay. waa gartay marka sidee ayay tani u saameyn kartaa awoodda Mareykanka ee uu kaga jawaabayo colaadaha mustaqbalka? Mareykanka in muddaaba wixii ka dambeeyay 1991 isagaa sheeganayay inuu yahay dowladda adduunka ugu weyn uguna awoodda badan. waxaa muuqata hadda dagaalka uu waddanka Iiraan la galay asaga iyo Israa'iil iyo Mareykanka ay la galeen, marnaba isma aynan lahayn. awoodda ay isticmaaleen 5,000 oo weeraroo xagga cirka ah, duqayn aan naxariis lahayn. waxay islahaayeen xukuumadda Iiraan afka ayay goosanaysaa, guul degdeg ayaa soo hoyanaysaan. laakiin Iiraan inay adkaysigaasi leedahay 4 maalmood gudahoodna ay ku burburisay 16 xarumood ee militariga Mareykanku ku lahaayeen gobolka bariga dhexe ayaa waxay noqotay wax uu Mareykanku la qawaayay. ilaa iyo haddeertaana Mareykanka sida khabiirada hadalka u dhigayaan waxa uu maareyn la'yahay guul darrada u soo hoyatay. warbixinadan hadda soo baxaya, kuwii ka horreeyay oo soo baxayay, waxa ay ka hadleen oo kaliya kharashkii baxay oo 29 bilyan oo dollar lagu sheegay. kuwan laakiin Congress-ka ka soo baxaya ayaa muujinaya xaddiga hub la'aanta ee Mareykanka haysata. Iiraan oo haysata magaalooyin dhulka hoostiisa ah oo gantaalla oo ayada ay samaysatay ah iyo diyaaradaha daroonisa. agabkii Mareykanka uu lahaa waa ku gacan sarreyn doontaa. dagaalkan la isku riiqday waa sida hadalka loo dhigay oo aanan muddo dheer xataa socon, 40 maalmood socday, ayaa cawradii Mareykanka bannaanka soo dhigay. dagaalka haddii lagu noqdana qabiilo badan waxay leeyihiin oo Mareykanka ku noqdo, waxay noqonaysaa halkii uu hadda ay u roon tahay in uu xabajoojinta uu qaatay iyo heshiiskan is-afgaradka ah ee ku-meel gaarka ah inuu meel mariyo. haddii dagaal la isku noqdo si xooga ayaa looga soo bixinaya gobolka bariga dhexe. inuu ku soo noqdana waa adkaanaysaa, sida uu hadalka u dhigaya Douglas McGregor oo xukuumaddii hore ee Trump la taliyo u ahaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa uu leeyahay Mareykanka waxaa u roon inta dagaalkan joojiyo in uu isaga baxo gobolka bariga dhexe. joogitaankiisa waxa ay keenaysaa ugu dambeyntii Mareykanka inuu ku jabo oo xoog looga saaro. arrintaasna waxay noqonaysaa khasaaro weyn oo Mareykanka iyo Israa'iil u soo hoyday. waxaana hadda muuqata sida ay wax ku socdaan in heshiiska la gaaray laftirkiisa sida khabiirada qaar ay hadalku dhigayaan inuu qarka u saaran yahay inuu burburo. waa hagaag, aad baa u mahadsantahay Maxamed. waan arki doonaa arrimahaasi wixii kusoo kordha. daawadayaal idinkana aad baa ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka. waxa ay naga xasuusina haddii aad ku cusub tahay HBN Online TV ama hore aadan ugu xirnayn, kusoo biir baraheena kala duwan internetka aan ku leenahay. intaa ku kulmi doono barnaamijka midka ku xigo insha Allah.